xarunta dhaqanka nabadda iyo horumarinta bulshada oo inta badan ka shaqeysa nabadda iyo horumarinta ayaa maanta munaasabad ballaaran u sameysay professorro aqoon-yahano ururada bulshada rayidka ayaa waxaa looga hadlayay dhibaatada uu leeyahay tahriibka iyo sidii loo joojin lahaa dhalinta Soomaaliyeed ee u tahriibta wadamada shisheeye. Inta uu socday munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay kheyraadka yaala wadankeena iyo sidii loogu faa'iideysan lahaa. waa kuwan qaar ka mid ah professorradii halkaa ka soo qayb galay oo ka hadlay dhibaatada uu leeyahay tahriibka. waan la wada asiibay cilaajka daawada tahriibka waxa keenay waa fahmay, laakiin cilaajka muxuu noqon karaa haddaan si cilmiyeysan u fiirino qofka bani aadamka baahidiisa waxaa ugu horeeya cunto iyo cabitaan food, waxaa ku xiga inuu shelter helo deegaan meel maslaxdo inuu helo, waxaa ku xiga safety inuu helo nabadgelyo iyo security qofka inuu nabad iyo haysta yani ammaan. waxaa kaloo imaanaya wax la yidhaha self esteem, qofka inuu ganacsan yahay raaxo haysto baraawd yahay isku kalsoon yahay, iyo self actualization oo qofka inuu rabo inuu noqdo waxa uu rabo inuu noqdo. qof walba xoro inuu aabbo noqdo, qof walba xoro inuu aqoonyahan noqdo, inuu professor noqdo, inuu lawyer noqdo, inuu wax noqdo rabaa. intaasoo dhan waa jaraanjaro isdaba taalo oo qofka bani aadamka baahidiisa ah. taa waa meel waayo. midda kale xagga shareecada markaan ka soo fiirino maqaasid shareeca shareecada waxa ay ujeedadeedu tahay maqaasideeda diinteenna ay tahay iyo dhaqankeennaba waxa weeyaan in la badbaadiyo nafta. horta awal waxa ugu horreysaba diinta in la badbaadiyo nafta bani aadamka oo muqadas ah iyadoo in la badbaadiyo soo laba ma aha caqligii in la badbaadiyo, saddex cirdigii iyo sharafta in la badbaadiyo soo maaha, afar dignity qofku waa inuu dignified iyo nolol sharaf leh iyo akhlaaq iyo aadaab waa inuu ku dhaqmaa oo nasligii faraci bani aadamkana la ilaaliyo soo ma garan. waxa u dambeeya waxa weeye maalkiisa la ilaaliyo la xafido. haddaa shantaa baahida ah ee intaa la xafidayo aan isku dhufanno waxaa ka soo baxaya qofka bani aadamka ah bulshada inay u diyaariso iyo xukuumadda iyagu ay maadada tahriibka sanadkii koowaad oo iskool ka shaqeynayo ayaa wiil frontriyada aniga marka qorbaan ka imaan marka qorbo aad u xiseynaya marka ii yimid maalin kasta wuxuu ii sheegayaa inuu baxayo, anigana waxaan isku dayayaa inuu ku sheego waxa ka horeeyo. marka waxaan usoo gaabin jiray meel lagaa necab yahay, meel lagaa jecel yahay ka tegaysaa, waxaad tegaysaa meel lagaa necab yahay. waxaa u tegaysaa dadku necab oo diirkaaga necab oo diintaada necab oo ku arka inaad ka hooseysid haddana noloshana waxaa kasoo bilaabaysaa meesha uga hadda fomtriyaa tahay meelkana kasoo bilaabaysaa inay mar walba ay raadiyaan tahriibta. dhalinyarada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliya waxaa la dhahaa 70% 60% dhalinyaro waayaa la dhahaa inta u dhaxaysa 15 ilaa 35 sano. intaasna inta hadda shaqo haysato waxaa lagu qiyaasaa 3% 4% UN-ka waxa ay qorqoreen Soomaalida hadda ay ka qoreen. dhalinyaradii waxa waaye dhibaatada haysta waxa waaye shaqo la'aantii, waxbarasho la'aantii, dhibaatadaas oo dhan ayaa waxay keenaysaa inay ku dhiiradaan inay aadaan dibadihii ay badihii ay ku shubmaan. wax badan aan aragnay ilmo yaryar ayagoo dugsiga sare dhamay qaarkood iyagoo waalidka dhaqaalo u haayaan inay wax bartaan ay sii cararayaan, qaarna waalidka waxba uma u haayaan iyo waxay wax ku baraan barnaayaan. marka yani dadnimadeena maanta lacagteena xataa meesha maraysa iblaheena waa ujeedaa dhibaatada ka taagan maanta immigrationkan iyo mashaakilkan. ustaad cali arintoo kale waa jeelayr ala siiyey hadda ka hor arrinaa la sheegay, waxaa la sheegay islaan waayada ee da waxay jirtaa xamar wiil ay dhashay ah ilmo wuxuu ku dhalay Pakistan, midna wuxuu ku dhalay London, midna wuxuu ku dhalay Denmark ayay maas ku dhalay mataqaan. islaantii marka waxay tiri ilmihi aad dhasheen ii keen anigu waa khayr Allah isiyaan ilmi bartay. ilmihi la keenay
كده باكستان لقى أفردو قادة لندن إنجليش قادة كده المارك دان شرطنا بصومالي قادة ضد العمل أنا أيام كوا حتى ما نقدر يا بس كان أيين يسوي communication ملا وأي جالس جرين أي كي وردو قاد أنا كي وين بتبع لكن مشكلة ده أنا لما كنت كان هاي سفير بهير وما تكرسي horta waxaan bilaabaynaa adigana aan guddoomiyeynka dhiganaynaa inaan bilowno mashruuc oo lagu wacyigelinayo iskuulaadka ardada inaysan tahriibin mashruuc aad u weyn sababta waxay tahay waxaa ii sheegay oo aad aan ugu xumaaday gabar ayaa magafa u gacan gashay gabadhii waxay la soo hadashay xamar lacagtii ilaa $10,000 ayaa laga codsaday gabadhii adiga waalidkeeda ordeen jufada yaa la galay xagga gal lacagtii markii la diyaariyay oo loo diray usbuuc ka bacdi waxaa loo sheegay gabadhii inay dhimatay lacagtiin waa maqan tahay gabadhiina waa la dilay waana la farxumiyey marka waxaas sidaan ugu badbaadin lahayn professor Tooxow adiga marjac noo noqonayo iyo professorada kale si ma aragtay barnaamijkan aan wax ugu qabano waana barnaamij xasaasi ah dhalinyaradu waxay ka sii dhamaanayaan waddankay ka sii dhamaanayaan dhalinyaradu waxay ku dhamaadeen badiya ku dhamaadeen dhalinyaradu buufisaa ku dhacay nin uusan aqoonin oo Yurub joogo oo timaha u jaran yihiin oo si baas shaydaan aad u malisid ayuu isku kaysiinaya maxaa jiri markaa tiraahdo ninkaasaan taageeraya ula mana is yaqaanaan mana yaqaano xataa Ibrahim Cabdi Firin Cismaan CCBCD magaalada Muqdisho.